dadweynaha ku dhaqan degmada war-idaad ee gobolka Saraar ee Somaliland ayaa waxa ay si weyn uga cawdeen baahiyaha kala duwan ee dadka deegaankaasi ay ka heli lahaayeen xukuumadda madaxweyne Biixi. deegaankaasi oo aan dhawaan booqday dadka deegaanka ayaa mid ii tusay baahiyaha kala duwan ee ay ka cabanayeen, waxaanay madaxweynaha Somaliland dib u xasuusiyeen waqtigii ololaha doorashada iyo waliba codka ballaaran ee deegaankaasi uu siiyey. isla markaana madaxweyne Biixi ayay ugu baaqeen inuu cabashooyinkoogaasi wax weyn ka qabto. dadka deegaankaas oo iskugu jira mas'uuliyiinta deegaanka iyo waliba dad kale oo waxgarada oo degmada war-idaad oo kala badha Somaliland ka tirsan waxa ay sheegeen. halkan Batri Kosaaro waxa weeye waa war-idaad waa bartamaha Somaliland. magacaygu aniga waxa weeye Ibrahim Maxamed Xaaji Faarax. aydna waan ku magac dheerahay hadii alla inaanaysta saacana. magaaladan anigu war-idaad marka la eego waxay ku taalaa Somaliland bartamaheeda oo gobolka Saraarna kaga beegan magaalo madaxdiisa xagga waqooyi. buurdhaaba u dhaxaysa. Saraar hadaa maqashaana buurdhaaba wixii waqooyi uga jeeda silsiladana koonfur ka xiga tog dheer bari ka xiga sanaagna hadii alla maayo galbeed ka xiga horta Saraar la yiraahdaa. ayrabi meesha ku taalo waxa la yiraahdaa cayn. war-idaad hadaan ku soo noqdo waxa la aasaasay 1955 dadkii ugu horeeyay waxa ka shiday nin la Ismaaciil Xaaji Faarax oday oo aniga adeeray ahaa. waxa biyo ahaa goofka meel balliyaho imika xagga waqooyi laga xigta oo dhowr hadii alla maayo kiiloomitir weeyay halkaas aan tuulka kaga soo dhaansan jiray. magaca war-idaadna waxay ahaan jirtay meel marka horeba wartu waxa weeye waa warbiya qabata idona meesha ay ku caanbaxdo dhulka ugu xoolaha badan la weeyay Somaliland. inta labada buurood dhexdooda iyo labada gobol dhexdooda waa inta xooluhu aad ugu dhaqan yihiin. war-idaadna waxa loo yiri idaa ka cabi jiray. ingiriisi markii uu joogay hadii alla maayo waxay ahaan jirtay ilaala fadhi jirtay oo marnii Cabdi Ogle loo jiray waa joogi jiray. xisbiga hadii alla maayo oo Maxamed imika uu ka dhisay Muuse Biixi mar waxaan isu taagnay dawladda hoose laga dooranayay oo war-idaad isu taagto bacadka isu taagto muddo badan baan u taagnay waqti badan baan u galin. waxaan hadii alla maayo isu taagnay markii Siiraanya dhacay oo aanu bacad isu taagnay. waxaan isu taagnay markii uu hadii alla maayo doorashada helay. waxaan isu taagnay markii hadii alla maayo dawladda hoose la dooranayay xisbiyadu kala hadhayeen. waxaan isu taagnay markii Muuse Biixi hadii alla maayo intaaba bacadkana waa isu taagnay waqtina waanu gelin. waxa leeyahay Muuse Biixi oo abaalkeygii waanu sugaynay oo maanta inagoo ah jamhuuriyad aad iyo aad isaga ladan aad iyo aad baan waxa noogu liita deegaaniyadka aan xaq u leenahay. magacayga waxa la yahaa Dr. Nuux Ducaale Maxamed baa la yahaa. MCH waxa gacanta ku haysay bisha cas oo bishii 7 ee 2019 ilaa bishii December ee 2019 bay gacanta ku haysay. shaqaalahaas ka shaqeynaya meesha laga soo bilaabo 2020 ilaa maanta ay tahay bishii 6 wax mushaara ma qaadan kuna dawladeed iyo mid hay'adeedna ma qaadan. waxa u shaqeynayaan dadkooda u shaqeeyaan voluntary bay ku shaqeeyaan habeen iyo maalin way shaqeeyaan. wax kuna dawladeeda iyo mid mushaarna ma soo gaadhin. shaqaaluhu payrollka kuma jiraan. hay'adii u shaqeyn jirtay hay'adii kunada siin jirtayna waxa ka dhacay qandaraas dambena ma helin. xagga sablayga waxa noo keenta bisha cas inkastoo aanay xagga sablayga dawladda bisha cas baa noo keenta. sablay dhamaystiran ma aha adigu waa waxaan anigu ku wadno meesha weeye. sablaygaas waan dhamaystiran waxaan ka helaa bisha cas. xanuunada coronavirus waddanka ka jiro ayaanu ku shaqeynaa xaalad adag oo bini'aadanimo ayaan ku shaqeynaa. dadweynaha degmada Saraar aad bay u badan yihiin. waxay gaadhaan number of population wuxuu gaadhaa 2800. xanaanada bishii waxa ka faa'iideysta
ilaa 3,500 oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan inay noqon lahayd hooyooyinka uur kale kuwa umulay caruurta yaryar under 5 ka hooseysa ilaa 3,500 baa ka faa'iideysta. magacaygu waa Ciise Muuse Diiriye oo ka tirsan odayaasha degmada Waridaad. waxaan ugu horeysiinayaa dugsiga sare. dugsiga sare waxa la furay sanadkan horaantiisii. muddo dheer buu dhisnaa, waxa dhisay ninka la yiraahdo Jac Karaaciin. dhaqaale weyn buu geliyay, Ilaahay khayr badan ha siiyo. wuu furay yahay, wuu shaqeynayaa. annana waxaan ku dadaalay inuu furo isagoo muddo dheer naga xidhnaa. furitaankaanu furnay waxaanu ku furnay dee tabarucaad dadku iska ururiyey iyo in la isugu keeno macallimiintii mushaharkoodii iyo in meeshii la furo. way furan yihiin, wuxuu ku furan yahay gacan ama dibadda aanu iska kaashanay ama gudaha iska kaashanay gacan ay leedahay degmada Waridaad ayuu furan yahay. baahi badanna way ka muuqataayoo annagu waxaanu ku dadaalay inaan horta macallimiinta aanu xoogay gun ah aanu gaadhsiino. dugsigii wax kuraasiya ma leh, ma qalabaysna, waa maran yahay. waxaana dhigtaa form 1kii iyo form 2giiba way dhigtaan. ma qalabaysna, waxa weeye waxaanu kuraasiba nooga soo ururnay xaafadaha. qalabkii u baahnaa dugsigu ma qalabaysna. macallimiinta aanu isugu keenay waa 4 macallin. 4taa macallin midna dawladdu kuma le bayrod. waxay qaataan waxa weeye waa wixii uu ka soo urura dadweynaha gacanta dibadda jaaliyada waxaanu ka helo oo reer Waridaada iyo wixii dadweynaha iska xilqaaban magaalada gudaheeda laga ururiyo. baahiyaadka kale jira waxa kamid ah waxaanu college jeenan ka jirta xanaanada xoolaha way duunsanta waxa la dhisay ilaa 2000 bir hore ayay duuntay. waxa shaqaa ay qabataa haba yaraatay ma jirto, waa duunsanta. waana bogcada ugu weyn ee ay ku nool yihiin xooluhu ay ku dhaqmaan. marka waxay u baahan tahay marka taasina in la kiciyo xanaanada xoolaha, inay xoolaha aad iyo aad u cid dhaqaatiira iyo xanuunadii maanta iska bato sida aad iyo xoolaha ugu badan oo geeli ku badan oo geelu maalin walba magaalada joogno uu ku dhintaa wiil wala keenay hilibkiisa. waxaasina kulli wax ka jawaabaya xanuunada laynaya ma jiraan. marka waxaanu jecelahay inaanu helo xanaanada xoolaha inay shaqeyso, caafimaadkeedii xoolaha la ogaado. iyadana kulli xagga degmadana kulli boolisku waxa weeye taasna baahi baa ka jirta oo halka rug baa nooga dhisan, ciidan baa jooga. laakiin waxa dhibaatada nagu haysta waxa weeye qaabta isku dhow meel 5 kilomitir nooga jirta marka shil ka dhaco waxaanu adeegsanaa baabuurta shacabka. intoorana waan ku qaylnay dawladda war inaanu ka helo gaari dawladeed oo booliskaas boolis wanaagsan baa joogo dhowr iyo 10. aniga magacaygu waa Xirsi Xaaji Faarax. odayaasha markii hore kulliday waxaan jiray intii aanay degmada noqon odaygii magaalada ayaan ahaan jiray. waxaanu leenahay madaxweyne annagu waxaanu ahayn dadkii dee ku doortay yacniga kula taa keenay aanu islahayn dee doorkiina waa ka helaysaan iyo waxa ka mudan tihiin. haddeerna waxaanu kula madaxweyne baaqaanu kuu soo jeedin madaxweyne baahiyaadkaa la sheegay inaad si degdega nooga soo jawaabtid. waxa weeye wax biyo ah oo waxa dadku ay gacmaha ku samaysteen ee baraagaa yaryar ah mooyaane bil iyo 2 lacaba mooyaane wax biyo ma leh. haddii la odhan doono Waridaad riig bay leedahay oo xukuumaddu ay aragtay inay riig leedahay, riigga ay leedahay wuu jiraa daadkan waxa caba oo kaliya geela biyihiisu marka ay dhulka saa loogu shubo way fadhiistaan. been ma sheegayo wale ummad kale u aroortaa ma jirto. arigu wuu ku baqbaqtiyaa, geela oo ugu noolaha ugu awoodda badan leh xawayaanka aynu haysanno unbaa ku noolaada biyaheeda. aniga waxaa la yahay Sheekh Said Cabdilaahi, waxaan ahay garsooraha degmada Waridaad. waxa aan ku jirnaa oo maxkamadda ay ku jirtaa dhismo ku meel gaar ah oo ay leedahay wasaaradda waxbarashada ee dugsiga sare. ayaanu qayb kaga jiraa. waxaanu markaa u baahannahay insha allahu tacaala in loo ay yeelato maxkamaddu dhismo u gaara oo ay ku gudato hawl maalmeedkeeda.